waxaan arkayay xasan sheekh oo hadlaya oo relaxida oo confident ah, nin isku kalsoon oo si nafisa u fadhiya oo maxaanku dhaha dadkiisii la hadlaya oo kale saasuu markaa u hadlayay u muuqday. xasan iyo asxaabtiisa kale ismaaciil cumar uu kow ka yahay waxay sameeyeen wixii la odhan jiray trial and error. quraanjo haddaad soo qaado oo meel xidhan oo laakiin albaab leh aad xagga dambe dhigto, quraanjadaas waxay tareegaraynaysaa afarta koonaba, way tareegaraynaysaa, gidaarkii madaxa ku dhufanaysaa, way ka soo noqonaysaa, xagga kale tareegaraynaysaa, gidaarkii madaxa ku dhufanaysaa, way ka soo noqonaysaa, ilaa ay halkaa ay hesho deetana way gelaysaa. xasan iyo ismaaciil taas bay ku jireen ilaa iyo intii MOU soo baxay. kolba gidaar bay duqaynayeen. ugu daran markaa xasan haysatay kolba gidaarka duqaynayay special dhankan Etoobiyaanka waxay ahayd markii u dambeysay uu yidhi okay anaaba meelihii ay doonayeen isagu siinaya markii ay yidhaahdeen maaha halkaan doonaynay oo macno nooma laha, deetana halkan aad doonaysaane berbera iyo anywhere maxaanku dhahdaa Somalilayna oo de anigu aan xukumo waan idin siinaya. waxay ku dhahaan de waa hagaagi ila waan is ognahay aadna sii sida horta berbere ma tegi kartaa, anywhere in Somaliland ma tegi kartaa. halkaa marka marayso markaa albaabkii muhelin uu ka gelayay wuu aamusay. meelo kaloo markaa isku qaadqaaday jaamacad carabiya, Masar, Eritrea, kolba meel kale. dhankii deetana Ismaaciil baa u fakiray, wuxuu war waxaad yeelaynaa ururkan Africa waan ognahay waa corrupted, waa dadkaad aragtay waxay masilaan dowlado yararooda dictatora oo maxaanku dhaha saa Soomaaliya ED oo kale ah. kursigan soo socda doorashada waan iibsan karaynaa. taa way ku najixeen, way iibsadeen kursigiina. markaa wasiir khaarijigii Jabuuti baa lagu fadhiisiiyey. maxaa markaa uga macno ah? waxa uga macno ahaa dokumentka yaala ninkii markaa Nigerianka ahaa ee fact finding missionkii loo soo diray Soomaaliya madaxda ka ahaa Osanja inuu ahaa malaynaya. dokumentkaasi wuxuu caddeeyey inay Somaliland ay ka duwan tahay oo ayna ahayn waddan ka go'aya ee laba waddan kala ahaayeen oo iyagu u tegeen iminkana ay la soo noqdeen. marka waan si gooni loo xaalkooga loo fiirsadaa. halkaa dadaalkaygii maynaan yeelin, maynaan si wadwadin aduu warqaddu halkay taallay. markiiba markaa Ismaaciil warqadeebaa markaa isaga ayuu markaa focus ka saaray. waa taasoo way dhacdayoo warqadii buu ama ina turaan ama ina bedelaan. deeta way bedeleen baa igu maqaala ah. warqad bay markaa qoreen, Maraykanka u qoreen oo ay leeyihiin Africa haddaad nimankaa aad ictiraafto qurub bay kala googo'aysaa, waa keer. marka waa taraan erarkiiba weli ku jiraan. warqadaas weli albaabkii may helin, laakiin gidaaradiiba garaacaysaa. taa waxaa ka horreysay tii xasan qoray ee uu leeyahay Maraykanow anaaba ku siinaya waxaad doonayso, berberadaa doonayso iyo qaar kaloo badan oo halkayga ah intaba waan ku siinayaa.
maxaan ku dhahdaa nimankaas ictiraafkooga jooji. taasina albaabkii ay ka gelaysay ayay doondoonayaan. waxaasan weli waxaa hor taalla waxaad siinayso bal ma tegi kartaa meesha. xasan markan anugu aan leeyahay waxaan dhegeysanayay isagoo oo isku kalsoon oo si nafisa u fadhiya oo siduu caruurtiisii la hadlayo u hadlaya oo dadkaygii baan heshiisiinaya meesha. dowladdaydii oo dhan baa tagtay, executive branchkii oo dhan baa tegey, uu hogaaminayo prime ministerku. maxaan ku dhahdaa I'm already there. meeshii la odhan jiray ma tegi kartaa, waaban joogaaba waan tegey. isagoo bointku burufgaraynayey waa kaa waxaad moodaysa markaa inuu jackpot kii helay tigidhkii bakhtiyaar nasiibka lagu helayey. waxaad mooddaa markaa inuu albaabkii ku dhow yahay. waxaa haddaba maxaa jireen dhinacunbay wax ka socdaane dhinacii kale oo innaga ah waa xaalkeenu waa maxay? de waa innagaa usoo diiniba, waa innagaa albaabkii ka furray. waa kaa maanta ina kelim garaynaya. awalba wayna kelim garayn jireen, waa innagaa xukunna iyo odhan jireen. laakiin iminka the proof is here. meeshii waan joogaa. waxaa markaa meesha ku jira oon shaki lahayn in waxaan xasuustaa survey yaroo degdeg hoo la qaaday oo dadka reer soomaaliyana qurbaha joogay gudaha joogaan telefoon lagula xidhiidha iyo email iyo wax lagu qaaday iyo waxa la weydiinayey dowladaha jaarka ah innaga ayaa khatar waddanka ugu khatar ku ah ictiraafkeena iyo independencekeena waayo. ma Etoobiya, ma Jabuutiba, ma Soomaaliya, ma Somaliland ku dhida. 90% dadka waxay yidhaahdeen waa saddexdan weeyaan. Etoobiya waa kuwa kale waa B C D. saddexda kale waxay yidhahdeen waa saddexdan kale. innaga yani xataa khatar ku ah innaga independencekeenii iyo ictiraafkeeni 90% ayaa markaa intaa yaa laga helay. wayna ku caddahay intaa activitygu socdo ee adduunyadu inaga hadlayso forum ilaa markuu muuse meeshaa ka tegi ilaa yoomana haadaa saa laynooga hadlayo ma jiro. tuulkii maxaan ku dhahaa fandhaalkii waxa lagu cunayena maynaan samaysan, xeedhadiina xataa maynaan samaysan. waynu iska fadhinaa. waxaan xasuustay maxay odhan jireen mahmaadii ciridka aan arkaya ilkagama soo jeedaan. dowlad xirsi iyo maxaan ku dhahdaa khadar yare ay xukumayaan ilaahunbay leedahay. ilaahunbay leedahay. waxaanse la yaabanahay haddii uu ciro ama ummaddan khiyaameeyey ama uu seexday. idinku 150,000 ayaa u shahiiday wixii tiro laayay. 100,000 xoolihii la ururiyey ee ummadda ururisay baa dambaska laga dhigay. magaalooyinkaasaa nuu soo noqonoo dambas ah oo miino midhan hoosta kaga aasan tahay. all that for what? in xornimo la gaaro, dowlad la noqdo, dad la noqdo, wixii inagaga dhacay nimankii aanu u tagnay koonfurta Soomaaliya la odhan jiray Soomaaliya aan ka raysano. haddii haddaba maanta tii aan ku noqonayno in yar laynoo gelinayo in yar oo maanta ictiraafkeenna aynaan soo qaadan karin halkaa miiska yaalla. maxaasoo dhan maxaan u gallay? biayi dambin qutilat. in la isweydiiye weeye. cadowgeenna ma seexanayo,
وكا ترى إن ركا كوجرة سيدو كل ما ملي الباب وقليه ما أنت لبضان نينكا عين دورنا عبد الرحمن نفرو يو نينكا عندنا دورنا حمر فرديا وحكم ما اسكو كالصونا اوبريشن كيسي فولي كان يوفقرها حتى عديه للسعودية وحن للسعودية ummaddiisii wuu qaa'imay kitaabkii qur-aanka uu gacanta saaruu qaa'imay dastuurkii yuu qaa'imay haddii aanu la soconna iyadana waa khasaarayso markaa labadaa nin dowladday wadaanna ilka kama soo jeedaan anu waxaan odhan lahaa markaa sidan si maaha marbaa beri hore yaa waxaan marka u inaariyaale gobollada magacaabay ayaa waxaan idhi waa ina riyaale wuu hagaagsan yahay intaa iyo inka badan baa lobaynu magacaabahayn ma isbixinaysaa iska ilooba ma isbixinaysa yaa bihitoona waar kolley isma xukumi karayne waynu halkaa bayaynu ku soconnaaye abruuf gareeya oo inagoo intaas waxaan xasuusanahay karal ninkii la odhan jiray waa sekretarigii barasaabka ingiriiska markii calanka maxaan ku dhahdaa aynu qaadanay waa ninkii lagaga sii tegey intii ay joogeen iyuu wuxuu yidhi haddii laydin kari waayo tidhahdeen dhankaasaan tegaynaa baarlamankoogu waa 90 something mise 90 buu ahaa idinkuna 3 badanka ku haysaan 3 hataad israacdaan mooshinada joojin kartaan relevant ba ma tihidin macnaba yani layduguma xisaabtami karo markaa kororsada waa yahay baa la yidhi NUFT iyo SNH labada xisbiya markaa ugu waaweynaa NUFT way 75 bay soo qoreen SOH oo in cigaala secretary general ka ahaa odayii kale oo ninka magaciisa waa laqeena oo madaxweyne ka ahaa way diideen anuu tii baan xasuusnaa waxaan kaloo xasuusnaa ummadda xornimadeedii ku heshiin weyday ee markuu cabdilaahi ciise yidhi war bal afku ii tago oo waxaan wax dhaama ii keena xataa uu ku yidhi ay iyagii heshiin waayeenay dabeetana yidhaahdeen meelaan ku noqonnona ma hayno annagiina maanaan heshiin waxaan doon garataan mar taasaan xasuusnaa iyadana waxaan at least iyadoo intaasoo gobol la leeyahay markaa kaa la tago 5 dowlad goboleed iyaguna 5 baa haystaan waad balans garan karta wallahi taas ay ku soo dhacday waqtiga maantay taagan tahay oo tiin aynaan iska xaasidnay caqlina aynaan hayno maanta labadaa yarar ay dowladda inoo yihiin ninkii kalena missing in action yahay markaa goor walba SNMT buu ilaahay inaga soo saaray xaaladeedii oo meel adag aynu marayna waxaan ila tahay markaa in sidan laysku dhaamo oo dadku ay yidhaahdaan dhulkan yaa leh lamaana alard ma labadan yarar baa leh sheega anugu maya ma ciraa leh maya wixii dastuurka jebiyeen way jebiyeen waana dembiilayaal waddanka iyagu waan kelim garaynaynaa taa waxaase ka si fiican inay iyagu isla yaabaanoo ay hurdada ka kacaanoo ay dhaqdhaqaaqaan miiska inoo saaran tahay saas anigala tahay wallahu waliy tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan baasay ku xirtay maxaa حتى هدو فرون يابك دهب بلاس وأمان
hadda la soo deg abka dahabalaas ku xafida hantidaada oo ka warwarnaaw.